بسم الله الرحمن الرحيم داودياش يدا قيمها يا قدرنت الله كسر دوادا برنامج كني دبك هذا وبرنامج على أتكدا وطن تيفي عالمي كالسن تيفي سيدا قالبك وحين جعلنا هنا نجور والمد الصوماليات وصوت تبينه وحولي بقى عن سلنا هاي وأرن مهم هو إن أوجانشه هذا أما أي لا صعدان برشة الصوماليات مال والبقى يدل دا دعفة كأنه شاي dabka hadal saan hore u sheegnay wuxuu isugu jiraa musalsal dhowr laamood ah balse caawa waxaan ugu talagalnay inaynu soo qaadano qaybta noogu magac darnay amuuraha carreedag oo ku salaysan baaxadeg siyaasadeed iyo isqabqabsi ka taagan gobolka city oo ka tirsan ismaamulka ama dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia waxaa marti barnaamijka inoogu alaaba inta badanna arrimaha ama siyaasadda geeska Afrika ka falanqowda mudane aadan jaamac kaahin oo xubin ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee wadanka Ingiriiska kuna nool magaalada Milton Keynes ee gobolka Buckinghamshire ee cariga Ingiriiska marka hore aadan ku soo dhawow dhabka hadal Faisal inta aadan kaga gudbo run ahaantii waxaa jirta arrimo inta badan u baahan inay bulshada Soomaaliyeed ay la socoto ama ay wax ka ogaadaan waxaa jira aararteena barnaamijka ama daafurka hadaynu uga dhigno sida aad la socotaan goor walba waxa ka jira deegaanada Soomaaliyeed ee wadanka Ethiopia ama Soomaalida ku dhaqan dhulka Kenya in ay la kulmaan baaxadeg siyaasadeed iyo barabixin ku salaysan mid dhaqan iyo mid deegaanba boqolkii sano ee ina wadaartay dhulka Soomaalida Ethiopia maanta waxa ka socday dhul balaarsi iyo barakicin aad u baaxad weyn waxaana ku hayay mar walba labada qowmiyadood ee kala qowmiyadda Oromada ama qowmiyadda Anfarta banaanbax looga soo horjeedo dhibaato la sheegay in lagu hayo shacabka Soomaalida ee degan dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan beesha Ciise ayaa ka dhacay afaafka hore ee dhismayaasha ay degan yihiin baarlamaanka iyo guddiga midowga Yurub ee magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka dadweynaha banaanbaxa ayaa ka cabanayay dilal ciidamada Ethiopia ay ka geysteen dhulkaasi iyadoo maalmo ka horna deegaanka Shinina lagu dilay ku dhawaad 15 qofood oo shicib banaanbaxayaasha oo aad u careysan ayaa halkaasi hadallo kulul ka soo jeediyay waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaan halkan fariin uga diraynaa dawladda Ethiopia haddii aan nahay beesha Ciise ee ku nool qurbaha waxaan u diraynaa fariin war in badan baan fariin idin dirnay maasidan idin soo dirnay aan idinku maqashiinay codkayaga annagoona raali ka ahayn qaabkan aad u dhaqmaysaan inigoo baalmaraya dastuurkii wadanka waxa aad kula dhaqanteen dad Ethiopian oo wadankoogii degan intoo laga raro in kuwa kale la soo dejo dastuurkay baalmarsan tahay wixii inta dhaafsan waxa weeye waxa ay keenaysaa inaan gacan ka hadalno ay keenaysaa waxa kale oo rabaa inaan baaq u diro maamulka Cabdi Cumar Iiley oo hogaaminayo ayaan leeyahay shame oo you baan leeyahay warsiday ku dhacday wadan adigu aad madax ka tahay oo wadan Soomaaliyeed oo nin Soomaaliyeed tahay madaxweyne Soomaaliyeed ay tahay inaad bixiso okolaato iyadoo dastuurkii laga mariyo adigoo dastuurku inaanu ku saamaxaynin inaad ku taagantahay adigoo sida okolaataa inaad tiraahdo wadankii baan saxeexay waxaan leeyahay dhibaatada aad ku haysid ciisaha qoomiyadda ciise dhibaatada aad ku haysid iyo wadankiisa aad doonaysid reerahaad gacalka tahay inaad ku dhaqdiin dhul ciise iyo hore looma qaadan adna imika qaadi maysid ka jooji dhibaatada dadka aad ku haysid ka jooji ciise waxa weeye qoomiyad ka dhaqan qoomiyadaha Ethiopia waana ka Ethiopia ay ku nagidahay ay nabadda ku tahay nabadda haddii la waayo ciise Ethiopia taagnaan mayso jooji nabadda wadanka aad dabka aad gelinaysid ka jooji iyo dhibaatada ciise ku haysid ka daa magaalooyinka ciise aad u soo horka dad aan wadanka aan lahayna oo ku dhaqnayna ka jooji hana soo horkicin dhibaatada Ethiopia aad u horseedaysid ka jooji laguma eegayo ciise malalig waxba kama qaadin haysanaasan waxba kama qaadin migisna waxba ka qaadin anna ka qaadin maysa waad ku guban kayina way yaqaaniin way isla degi karaan weygoodna way wada deganayeen baan leenahay dawladda Ethiopia ha ka noqoto tallaabadaas dibna isku noqoto fariin kale waxaan u diraynaa constitution Ethiopia iyo xeerka oo ku salaysan inaan dadka lagu kala saaro codayn ku midaysan midnimada wadanka iyo jiritaanka xuquuqul insaanka oo qof kasta wadan iyo meesha ku nool yahay inuu ku noolaado oo haddii ay la isqabto laba qowmiyadood
lagu kala xallili karo arrintooda waxaa la yidhaahdaa cod. waxaan ugaaskii odayada ciisaha ka codsanaynaa hadday dadkaasi dib dambaysa inigu soo noqdaan inaana maaragtay dadka albaabada ah ka fur waxaanan ka codsanaynaa dadka ciise weynka ciisaha Ethiopia dadray meel kastaba ay joogaan inay maaragtay u soo baxaan demonstration inay maaragtay ay wadanku ayna ismuujiyaan annagu maahan waxaan dibadaha ka soo baxayna inakuna waa inay ismuujiseen. isku soo wada duuba dhulka Soomaalida ee degtay Itoobiya gaar ahaan dhulka ay degaan beesha Ciise ayaa la sheegay inay ka jiraan dhibaatooyin xagga deegaanka ah iyadoo beesha Ciise ay ku doodayso in dhulkooda ay gobolkaas ay ku leeyihiin laga rarayo isla markaana la dejinayo dadyow kale oo u dhashay shacabka Itoobiya. waxaynu caawa doonaynaa inaan yarjeexjeexno deegaanada gobolkan City loo yaqaano ee imika ay shaqaaqooyinka ka taagan yihiin. gobolka City waa gobolka ugu cirifeeya dhulka Soomaalida xadna waxa uu leeyahay qowmiyadda Canfarta. haddaba su-aasheeda koowaad waxaan doonayaa in aan aqoon-yahanka weydiiyo maxaa soo cusboonaysiiyey arrintan imika gobolka City iyo deegaanadan imika muranka ka taagan yahay ee qowmiyadda Canfarta ay ku doodayso inay asliyan iyaga lahaayeen ama ay taagan yihiin waa dhul annagoo aan leenahay taasoo ay ku andacoonayaan in ay ogolaansho ka haystaan dowladda federaalka jamhuuriyadda Itoobiya kadibna dowlad deegaanka Soomaalida ee hormuud ka yahay mudane Maxamed Cabdi Cumar in uu u ogolaaday in ay ka mid ahaadaan deegaanadaasi gobolka Canfarta. arrintaasi maxaad ka oran lahayd mudane aadan? Faisal ma santahay sa u sheegtay wartaayo waxaa jira baryahan dambe dhublaarsi far badan oo qowmiyadahan Itoobiya degan ay doonayaan dadka Soomaalida in dhulkoodii ay qaataan. marka horta arrinkan aad su'aasha aad weydiisay soo noqdo waxaan ka dhignaa laba qaybood. labada qaybood waxa weeye siyaasadeed midna mid dhaqaale. siyaasadda waxa weeye marka ugu horeysa waxa qowmiyaddan Canfarta ogaatay in qowmiyadda Soomaalida ah dhul hore looga qaatay oo ay ka qaateen Oromada iyo qoladan kale loo yaqaano Borantaba iyo weliba qaybo ay iyagu lahaayeen oo lagu daray dhinacyo kale oo qolooyin kale ay degan yihiin. tusaale ahaan iminka meesha loo yaqaano Nageyle oo marka hore ay dhulka Soomaalida lahayd waxaa lagu daray dhinaca Oromada waxaa loo bixiyay waxa loo yaqaano Nageyle Borane si magaca Soomaalida looga tagtiro meesha. waxaa kale ognahay in meesha loo yaqaano Jilacsane ka tirsanay oo meel ahayd degmooyin saaran dhinacan u dhaweyd jijiyaagteeda ahayd la raaciyay dhinacyada lafteeda Oromada oo laga qaatay. waxaa kale ognahay in Diradhawa lafteeda oo ah magaalada ugu weyn ay Soomaalidu degan tahay una dhaxaysa Addis Ababa iyo Djibouti taa lafteeda ay soo badanayeen sheegashada ay Oromadu kusoo fidayso dhulkaas isaga ah. waxaana caddeyn u ah in maayaradii ugu dambeeyey marka maayarka meesha jooga Soomaaliya laakiin kuwii ka horreeyey waxay ahaayeen Oromo. haddana waxaa laga keenay weliba agreement odhanaya ama heshiis odhanaya marna ha qaataan Oromada marna idinku qaata oo dhulkii Soomaalida lahayd magacana Soomaalida lahaa. marka waxaas oo ay arkeen dee Canfartii waxaasoo arkeen ayaguna yidhahdeen dee meeshan waa la qaadanayaa dadkiiba qof walba u dhacaya dadkani anana dhaco. taas waa dhinaca siyaasadda oo xagga dambe dowladda Itoobiya ka fadhido oo isqarinayso oo iyadoo tahay dee cadow joojinana oo doonaya dadka Soomaalida inuu barakayo ka faa'iisto. taas waa mid. dhinaca dhaqaalaha soo noqdo waxa weeyaan waxaan la soconaa meeshan ay degan tahay Canfartu oo loo yaqaano 4 tribal junction oo ama saddex geesood ah. 4 tribal junction waxa weeyaan Canfartadan iyo background-kooda ka baxayo oo aan dib uga noqdo. Canfarta waxay degan tahay saddex qaybood, saddex dal bay degan tahay. waxay degan tahay Djibouti, waxay degan tahay Eritrea, waxay degan tahay Ethiopia. cadadka ay ku degan tahay marka waxa weeye in lagu qadaray ilaa 1 milyan iyo bar qof waxay degan dhinacan Ethiopia. in lagu qadaray 250 kunna waxay degan dhinaca Djibouti. in lagu qadaray 450 kunna oo dhinaca Eritrea degan. saas ay u degan iyagu. marka Canfarta ankaas ahayd ayaa sidaa la socdo oo waliba barnaamijka horena qaar qayb kaga hadlay waxaa laga sameynayaa deegaanka ayagu ay leeyihiin oo uu maro webiga loo yaqaano Hawaas dhinaca Soomaalida degan tahay laakiin kolleyba dhinacooda lagu maraa. waxaa loo sameynayaa laga sameynayaa meeshaas isaga ah warshadda ugu weyn Afrika ee sokorta ah. warshadda ugu weyn Afrika ee sokortaana
waxaa ku bixi doonta lacag dhan 570 milyan oo dollar waxaana amahaysay dowladda dalka maxaa la dhahaa Hindiya marka bacdama warshada meesha laga sameynayo waxaa kaloo hoos socda mashaariic kale oo ayaga naftooda ah in laga sameeyo oo la soo gaarsiiyo waqooyiga dalka Ethiopia dhinacyada ay degan tahay Anfarta iyo Tigray waxaasoo dhan ay degan yihiin in laga sameeyo barashadyo waaweyn oo xaggan maaragtay reewayada ama waxaa loo yaqaano tareemada oo ay doonayaan dhinacna inay transportationka ama xamuulka ay Djibouti iyo meelaha kale ka soo qadanayaanba ay u dhib yaraato dhinacna ay doonayaan inay horumarka ku adeegsadaan marka imika tusaalaada kusoo qaato waxaa halkaa barbar socdaa mashaariicaas iyaga ah 3 qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan mashruuc uu sameynayo Shiinuhu oo ku baxaya 1 bilyan oo dollar oo isagu Djibouti ilaa ay soo marayo oo mashruuc oo tareenka ah waxa kale oo jira isaga laftiisu mashruuc kale oo laga sameynayo Tajura ilaa meelaha Asima oo ayada lafteedu ay wadaan oo lacagteeda bixinayso dowladda bixisay dowladda yamaa ku bixisay dowladda Hindiya oo 700 milyan kaasi oo noqonayo tareen ilaa Tajura ilaa meeshaas ashigii waqooyiga Ethiopia in la geeyo waxa kale oo jira isaga laftiisu shirkad baa iyadana la siiyey Turkiya oo iyada laftooda ku sameynaysa mashruuc tareemeed kan oo isku xidhaaya markaasi degmooyinkan ay ama magaalada ay degan yihiin qolooyinkan loo yaqaano Anfarta magaalada ay leedahay hadda way maqan tahay inay tahay kolley magaceeda inay tahay ay isku xidhaan iyo Awaash meesha loo yaqaano iyo Hara Gabe meel yiraahdo intaaba in lagu xidho tareenka oo Addis Ababa Djiboutina lagu sameeyo ka markaa noqonaya ilaa 390 kilomitir buu noqonayaa waxaana ka shaqeynaysaa shirkad markii hore mashaariic hore aynkaas oo dhigi jirtay Dubai oo iyadoo ah Turki guud ahaan soo duubo mashaariicda faraha badan ee tareemada la sameynayo waa ilaa 580 kilomitir waxaana ku baxaysa lacag badan oo bilaayiin ah marka waxaas markay arkeen kuwa waxa daba socda mashaariic badan oo beeraha oo iskorta loo sameynayo warshada weyn iskorta ah oo dhinacaas laga sameynayo kaas markaa waxay keenaysaa marka indho badan ay halka ku waayaan oo ay Anfarta ay degaan jirtay ay la riixo marka ay dib u noqdaan oo marka ay doonaan dadkan masaakiinta la boobi jiray awalba Soomaalida ayaguna ay rahaan boobina taasoo marka haddaan kaga jawaabo su'aashi waayahay horta run ahaantii waxaa tiri arrinku wuxuu isugu jiraa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale waynu dareemi karaynaa culayska uu leeyahay balse waxaan doonaynaa in wax yar aan dib taariikhda u yar riixno runtii boobka ummadda Soomaaliyeed lagu hayo ma ahan mid maanta uu bilowday ama qoomiyadda Anfar ay bilowday 300 ee sano ee ugu dambeeyay ummadda Soomaaliyeed barbixin baa ku socotay barbixintaasoo ay ugu saleysnaa ay saldhig u ahaayeen laba arrimood oo kala ah yani dhaqaalaha iminka aad ka hadlayso iyo deegaamada oo ay dadka Soomaalidu mar walba aad moodo in ay iyagu yihiin kuwa u nugul in la riixo haddaynu tusaale u soo qaadano gobolka iminka City loo yaqaan marka horena Shinile la oranayay waa gobol hodan ku ah dhul beereedka iyo wax soo saarka dhul beera yani dalagyada kala gedisan iyo xoolaha noolba deegaamada uu ka kooban yahay ee degmooyinkiisa haddaynu mid aan isu dul taagno sida Afdam oo kale iyo Eeraar oo kale iyo Meeysa iyo Shinile iyo Dambal iyo Ayshaca waa deegaano runtii aad iyo aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeedna taariikh weyn ku leh Meeysa oo kale xusuustii waxaan xasuustaa sanadkii 2000 oo kale iyadoo qoomiyadda Oromiya iyo oo kilinka afraad ah iyo kilinka Soomaalida ay isku haystaan oo laba calan ay ka dul taagan yihiin Meeysa waa halka uu xadka ama qadka tareenka marka uu ka yimaado Addis Ababa ee uu soo maro Nasreed iyo Mataharo deetana Hawaas uu maro waa halka uu ka leexdo wadadan weyn ee tagaysa isku xiraysa ilaa jigjiga tagaysa ee sii maraysa deegaanada sida Asabta Farra iyo Meeysa iyo Qulubi iyo ilaa iyo Hawaday ilaa Hararka ka galaysa dhinaca bidixi ayuu mar walba ka maraya marka taariikh ahaan deegaankaasi horta waa deegaan aad iyo aad muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed laakiin waxaa nasiib darro ah ama ayaan darro ah iyadoo oo ay taasi taariikhdeeda aynu ka hadlayno in haddana ay noqoto meel mar walba xundurtii ama xasarada ay noqoto iyadoo ah dhul Soomaaliyeed oo la garanayo iminka deegaanadan ka hadlayno haddii aan markaa intaa kaga sii gudubno su'aasheeda kale waxay tahay
maxay tahay markaa siyaasadda kusoo cusboonaatay ilaa dhulka soomaaliyeed ee maqan waa uu badan yahay horey baan uga faalloonay $3 $2 dhulka soomaaliyeed ee soomaalida Ethiopia ama Etoobiyada maanta $3 $2 waa uu maqan yahay waxa uu ku maqan yahay qoomiyadaha sida Oromada oo kale xoogeeda iyo qayb kamid ah Anfarta lafteeda dib baan taa ugu soo noqon doonaa su'aasheeda labaad waxay tahay maxay tahay siyaasadda imika kusoo cusboonaatay in deegaanadani imika la isku haysto ee ma taqaanaa dhibaatadu hadda ka taagan tahay ee Gadmulu iyo Cadeytu iyo imika maxaa sababay maxaa u malayn karaysaa in imika arrintan ay buddig u tahay tan waxay u noqonaysaa waligan ku sharxayo labada qaybood ee dhaqaalaha iyo dhulalka fara badan ee beeraha loo sameeyo ay leedahay ay leeyihiin qolada maanta afarta dhulkan doonaya imika in la horumariyo oo beero badan laga sameeyo oo waliba ay imanayaan sharaa'iga waliba imanayaan ajnabiga fara badan oo ay magacaabeen qaar China iyo qaar kale ay doonayaan ka sameeyaan dhul beerad fara badan iyo waliba mashruucan weyn ee iskorta oo dhul aad u baaxad weyn oo wax ku baxay 570 milyan marka dhulka noocaas laga qaato oo waliba ay u badan tahay dhulalka maro wabiga loo yaqaano Awaas haddii aan iyo ku noqdo wabiga Awaas waa 1200 kilomitir waxa ku soo bilaabmaa dhinaca dhabarka Addis Ababa waxaan ku dhamaadaa harada ugu dambeysana waxay ku dhamaataa meel loo yaqaano hadaf ku dhow xuduudka Djibouti marka dhinaca Djibouti ku kala haradaasiga dhinaca kalena waxay ka jirtaa dhinaca Ethiopia marka wabigaas isaga ah ay doonayaan ka faa'iideystaan oo horena ay u dhacday waliba Ingiriisku inuu u sameeyay waxa loo yaqaan hydroelectric power ama quwadda korontada loo sameeyay 1960 loo sameeyay meesha loo yaqaano Awaas oo wali indaa ku hayaan European ku doonayaan mar walba inay horumar sameeyaan ay u sujeestaan inay sameeyaan oo horumar sameeyaan marka bacdama mashaariic fara badan meesha ka bilaabmayaan dadkii lagu wargeliyo lagu mashaariic meesha laga abuuraya waxa markaa noqotay marka dadkii in riixo meelaha laga qaado dibadna ay markaa yiraahdaan dhulkii Soomaalida dib u sheeganaa haddii aan dib u noqdo markaa imika warbixin ma soo saaray imika in la socotay maajiye imika qoladan horta laba ku noqon doona arrinkaas siyaasadda laba mowqif bay kala taagan Soomaalida iyo Baxarda iyo Anfartu Soomaalida meesha degan imika war murtiyo soo saareen waxay leeyihiin iyagoo boqorkooda la socdo boqorka magaalada degan Dirdhaba beeshaas isaga ay meesha degan iyo dadkiisuba waxa iyagu ay go'aansadeen in meeshaas ay leeyihiin oo ay ka tirsantahay gobolada Soomaalida ay degan yihiin waxba yaraatay aan ciidan loo celinayn nasabdara meesha waxa ay leeyihiin marka aan baaritaan badan sameeyay dowladda Itoobiya waxay hore go'aansatay in saddexdaas si degmee la isku haysto imika waa dagaal ka dhaceen 5 qofna ku dhinteen waxay ka leeyihiin degmada loo yaqaano Cadeyto iyo Cadufto iyo degmada loo yaqaano Adhamayto saddexdaas si degmo ayaa horta ay shaqo socota oo la doonayo in laga qaado meesha Soomaalida oo iyaga la geeyo way leeyihiin Anfarta anaga lahaan jirin bari hore hal la socoliyo marka markii aan baarina waxay ku doodayaan waliba ay qoreen qoladan deegaankan Soomaalida la haysto ay Itoobiya haysto tijiga fadhiya waxay ku doodayaan iyagu inay markii hore bixiyeen dowladda Itoobiya ay go'aansatay iyaguna ay taageereen oo waliba ay leeyihiin muddo cayiman ayaa Cabdifataax ninka loo yaqaano oo isagu ugu sareeya malaha dowladda dhexe ku jira iyo rag kale hogaaminayaanba ay ka qayb galan doonaan xafladda markaasi macnaha dhulkaasi isaga lagu bixinayo hase yeeshee waxay warbixin ay soo bixiyeen markaasi ay soo saartay beeshaasi iyada ah waxay ku caddeeyeen in haba yaraatay wax ka jira aanay jirin arrintaas isaga iyagoo waliba eedeeyey ilaa 9 oday oo ay yidhahdeen markaa kilinka shanaad baa u yeedhay oo si gaar ula faqay oo markaa dhabar jebinaya beesheeda laakiin waxay leeyihiin iyagu beeshaas lafteeda oo beesha dee ay magacaawdayba Anfartu ee beesha Ciise ah waxay anagu boqorkayga iyo inteeda waxaan ku go'aansanay oo shir lagu yeeshay waliba aan hore u yeelanay lagu go'aansanay in haba yaraatay dhulkaasi weli Soomaalida aan la bixinay haddaba martiyad bay soo saareen markaasi Anfarta lafteeda halkan ku xardhan warmartiyadkaasi markaasi Anfarta soo saartay oo urur loo yaqaano ARDUF soo saaray wuxuu leeyahay haddaan anagu ururka Anfarta nahay waxa aan doonaynaa inaan saddexda magaalada qaadano waliba waxaan xaq u leenahay waxaan ku doodaynaa oo kale arrinta intaas inaanay ku ekaanaynin magaalooyin kale ay waliba doonayaan iyagu ay leeyihiin magaalooyinka loo yaqaano Cadeyto Qunxa Fooqo
Gedameyto, Afdamo, Maiso, Erer, Aydor, Grani, Yanquti, Hanlasiri, Qabuli, Manat. Intaas soo magaalo ilaa 12 magaalo cusubna waxaa leeyahay kuwan hana la siiyo kuwa kale waa la siiyay waxaa leeyahay marka constitution-ka Ethiopia marka laga hadlayo si afartu dhigtay waxay leeyihiin constitution-ka Ethiopia haddii laga hadlayo anagu abti kuma qanacayno waxa laga yaabaa inay qoladan kale ay ku doodayaan constitution-ka abti dhulkan dadkan deegaan la eego iyagu waxay leeyihiin juraafka loo eegay laakiin anagu abti ku qanacmayno haddii taan loo diido dowladda Ethiopia diidana gacanteedan dagaal baan u gelinaa markaanu طريقنا أنو جرينا وده حياة ماشى أجريمي كده حي جيبوتي إيو كده حيين أنو وأنا كورمنا وأنا جرينا تقال بنا يحيى على كنوعس دولة إثيوبيا عن كعصرنا إن أردت نوعس عم برقبة وصلي أرك ودي جانا كأيوة يستع عفرت قال أفكار نوعس قال لك كأردت بعد مدارد إن تحساسية وأرين كلها تعيتهاي سنة سؤالنا شغالها كبلاواتي إلى عشان لا توقف أقولنتي والله ده بيلعبها كأردت ولي وعلوستاي وأنا أرين أدي أدبارتي كنتي نوعدك waxaan moodaa haddii taas Soomaalida ay ku socoto in dhul badan oo Soomaalida dib loo qaadan doono way tahay calaamad cusub iminka oo bilaawatay oo la doonayo in dhulka Soomaalida marba qaar la dhaco la qaato waa run haddaan intaa kaga sii gudubno run ahaantii waa waxa aad cajaa'ib u noqonaysa in Meeyso iyo Afdab iyo Eeraar oo aynu garanayno deegaanadaasi ay maanta canfari ku doodayso in ay leedahay waxay doonaynaa inay ka mid noqoto kilinka canfarta taasi waxay ku tusinaysaa ama dib noo xasuusinaysaa dhulka faraha badan leh Soomaaliyeed ee aanu goor walba ka hadalno ee horay u maqnaa Awasa iyo Matahara iyo Nasred horay baan ayaan halkan ka tabino horay baan uga sheekeynay taariikhdoodu waxay ahaayeen dhulkaas inuu dhul Soomaaliyeed ahaa qarni ka hor iyo 2 qarni ka hor dhul Soomaaliyeed ahaayeen su'aalaha marka mar walba la isweydiinayo waxay tahay sida imika aad sheegtay ugaaska beesha Ciise oo kale ugaas Mustafa iyo beeshiisa iyo gandaha ragga yani ku xeeran ee la taliyaasha waa ay ka doodeen arintan waa ayna diideen Cabdi Fataax oo ah madaxweyne ku-xigeenka saddexaad ee dowlad deegaanka Soomaalida isagoo qudhiisa raggii meesha loo diray oo ah deegaankaasna ka soo jeeda deegaankaasi dad badan oo Soomaaliyeed oo qabaa'ilo kale oo fara badan ayaa degan dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa marba marka ka dambayso inay isku sii eeganayaan dhulkoogaas sii socda dhulkan imika ka sheekeynayno ee aanu leenahay Nasred oo marka hore haadaamo la oran jiray Awasa ilaa iyo Soodar dhulka la yiraahdo nageelada imika aad ka hadlaysay ilaa Mooyaale ilaa Dila Gooba Yaabiley dhulkaas oo dhan waa dhul maqan waxa uu maanta ka tirsan yahay kilinka Oromada kilinka Afraada waxaan doonaynaa inaan Soomaalida ama bulshada TV-ga nagala socota aynu dib u xasuusino Oromo waa maxay horta waxa ay tahay dhulka aan ka sheekeynayna dadka la wareegaysa waayo sida taariikhda ku xusan ama la garanayo 10 milyan oo waxa jiro Soomaali ah oo la yiraahdo 10 milyan ee Soomaaliyeed ee ku hadla afka Oromada dadkaasi dhul iyo dadba ayay liqeen waa qoomiyadda Oromada dad badan oo Soomaaliyeed waxa jiro waayaha iyo waqti adag soo maray darteed u oromoobay oo deegaankoodii maanta uu ka tirsan yahay kilinkaasi afaraad baaxadda siyaasadeed iyo isriixa iyo dhulboobku waxa markii ugu baaneed uu soo bilowday xilligii Menelik oo dhulka yimid oo dhulkani uu kala ahaadee dhulka sare ee Highlandka ee Ethiopia Abyssinia la yiraahdo iyo dhulka hoose maartay taariikhda waxa ku xusan beelaha Ciise iyo Gari iyo Jaarso iyo Gadabursi jabkii ku dhacay xilliga Menelik dhulka uu yimid dhibaatooyinka loo geystay iyo sida xoolahooga loo dhacay waxay ku astan yihiin diiwaanka mahadooyinka diiwaanka la yiraahdo oo aanu hayno yani qabaa'ilooyinkaasi aminkaan soo sheegnay intoodii badan waxay u dhinteen daranyo iyo abaar iyo macaluul bay u dhinteen sababtoo xoolahoogii waxa dhacay Menelik ciidanka Menelik baa dhacay waana asbaabaha loo soo galay magaalada Harar taariikhdu way isguraysaa way soo socotaa Harar ayanu garanaynaayo dhowr iyo 10 sano ka hor dhul Soomaaliyeed ahayd dira dhabe oo caasimadii labaad ee dhulka Ethiopia ahaydna magaaladeed ugu caansan uguna dhaqaalaha badan leh ayaa gacanta Soomaalida ka baxday waxay uga baxday waxa siyaasad xumo ka timid siyaasiyiinta Soomaaliyeed maanta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay caasimadeeda tahay magaalada Jigjiga oo aynu ognahay dhaqaalaha ay haysato sidee iyadu u maareyn karaysaa ama maxay arintani ka tiri ayaad u malaynaysaa arintan imika taagan horta waxay iyagu kolleyba san ku sheegay oo waliba ay de
ay qoladan kale ka hadlayaan ba ama ay shirka ay qolada tamdaarka dhigaysa lafteeda ay sheegeen iyo dad badan waliba aan la xiriiray iyo baaritaan badan sameeyey deegaanka Soomaalida iyo waliba ninka ugu sareeya Sheekh Cabdilfataax waxaad moodaa inuu raalli keenay in la bixiyo dhulkaasi inkastoo oo sida aan markii aan ku carraabayba shirkii lagu yeeshay Cusbuuli beesha oo markaasi boqor Mustafa iyo beesha ku yeelatay ayagu ay diideen oo ay dhulkaas dhul ay Soomaalidu leedahay laakiin waxaan ugu sheegi lahaa حتى كوا لفتوا لا هلا سيو إنما كوا أني تكوا عنين وهم كانوا عايشين يعني كويتون قالوا كلا اللي هلا سيو هدي ضد سي هدي دول قادرين يدور خرا الوقتي لكن سومالي ده أيوب بانتي مكا إنه إسفهمان أو أي مدوبان أو ملك وجوجستان واللي بقوله ده نمك أي مقعابس أو عنفرتو كلية عن الجوديني سوى الجيرة أريد الله تاجره أو عن الجوديني كلية بس قوله أي مقعود عنفرتو اللي عيسى كلية عن الجوديني Soomaalida ay iskaashadaan oo ayagoo dhan ay yiraahdaan dhulka anaga leh ciise la hadlaysa anaga hadlaysa soo anaga iska day qolada hadlayna laakiin waxa fiican in la isku tago oo meel la joogo jisto magac kale lagu hadlo laakiin aan lagu deynin kaliya inay TV-ga ama qoraalada ama ay hadlaan ba kaliya qoladaas hadlaan hadda qolada ku deyso maanta hadda birta lagu imanaya waxaan oran lahaa waa in qolada taageero oo Soomaalida kale taageerto oo dhulka loo doodo isla markaana lagu talagalay waliba dira dhabay meelii kale ee maqnana in la sii xoojiyo oo la adkeeyo dhulkooda ay dadkii ay dib u qaataan sababta waxa weeyaan kale de wax weeyaan waa lagu soconaya oo adiga joogsanayso waayahay waxaa jira siyaasad oranaysa ama siyaasad inta badan ka soo fisha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya siyaasaddaas oo ku saleysan dadka Soomaaliyeed in la barabixiyo waa siyaasad aanan la qarin ama aan qarsooneen oo beesha caalamka iyo dunida u soo jeeda arrimaha ka socdo geeska Afrika ay maartay ay ogtahay waxa jira oo kale oo taa dhinac socda dhulka Soomaaliyeed oo mar walba loogu wanqalayo ama lagu sasabayo ama loogu sadbursiinayo qoomiyadaha mar walba ku kacsan Itoobiya tusaale ahaan qoomiyadda Oromada markaan imika ka hadlayno waxa weeyaan 60 sano u dambeeyay Oromiyada dhulka qoomiyadda Oromiya ay degan tahay 60 sano u dambeeyay ugu yaraan 415 qabale ayaa ku biiray qabale waliba waxa uu ka kooban yahay 500 oo qoys 500 oo qoys marka 415 qabale lagu dhufto waxay noqonaysaa dhulka Soomaaliyeed xoogiisu inuu maqan yahay waxa jirta maanta oo dad badan oo Soomaaliyeed aysan ogeyn magaalada la yiraahdo Baabiley waa magaalo aanan magaalada Jigjiga ka fogeyn waa magaalo xundur u ah ummadda Soomaaliyeed in ay qoomiyadda Oromiyada hoos tagtay Bombas iyo Xadow oo magaalada Jigjiga dusheeda saaran oo buurta Karamardha ay halkay ku kufaysay tahay ayay soo qooransanayaan jinacsani oo aan ognahay inay tahay dhulkii Soomaaliyeed ee dagaaladii markii halgankii uu ka socday magaalada Dadkarna iyo Dakar iyo Harar magaaladii ku soo xigtay ee deegaanadii dagaaladu ka dhacayeen ee Imaam Axmed Gurey uu ka dagaalamayay magaaladii ahayd in maanta iyaduna ay u wareegtay dhinacaasi waxaasoo dhan oo isdul saaran waa siyaasad ka imanaysa dowladda federaalka Itoobiya balse waxa loo baahan yahay inaynu fahanno ama aynu dareenno arrimahan imika aad ka hadlayso ugu dambeyn maxaad u malayn karaysaa hawshan imika taagan waxyaabaha inta badan lagaga hortegi karayo ama loo bandhigi karayo ama cidee ayaa loo adeegsan karayaa in hawshani baaxadaasi ku soo socoto ummadda Soomaaliyeed cidee loo adeegsan karayaa oo ama u faro dhuuban xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeedba ayaad u malayn karaysaa horta markuu horeysa weeyaan Faysal ma tahay oo si fiican u dhigtay oo runtii deegaankan adigu waad martay waad garanaysaa inta raqiyana waa tahay oo xog baad u daloshaa waxaan ugu halkan u arkaa waxa weeyaan laba tusaale ku siinayaa oo labadaba ay ku soorta dawladaha Yurubiyaanka iyo Mareykanka in mar walba ay garab taagnaayeen dawladda Itoobiya oo lugto qabanayeen maxalada dadka Soomaalida mar weeyaan dawladkii waddanka la qaybinayay 1840 ka qaybiyeen oo shirkii lagu goostay 1896 kiina dhulka ay u bixiyeen Galaland ama dhulka Soomaalida ay leeyihiin galbeed oo dhan oo dhulkii la bixiyay waxa ta ka sii daran in waliba la socoto adigu wax ku tusay macnaha cadawad dawladda leegtahay in magaranaysa xataa markii Djibouti la xariiqay 1997 ay Minilkh iyo Francisco ay xariiqinta iyo laftooda ay ka shaqeeyeen intaas aan ugu leenahay sababta tareenkan marka xariiqinta loo sameeyay Djibouti loo jarayna ujeedadu waxay ahayd markaasi in la sameeyo tareenkan meel gaar ah oo ka go'an dadka Soomaalida ah oo iyagu adeegsan karaan
waxaa ka sii horreysay taasi in weliba markii hore ay agreement la galeen qoladan ama heshiis la galeen qoladan loo yaqaano tajaro ee canfar degan markan dambe Soomaalidu yimaadeen si ay markaa kuwaas sidii ay u noqdaan dad ay kacsan leeyihiin marka waxa weeye dadka loo adeegsan kara muxuu yahay waxa weeyaan ummadda Soomaalidu sidan maanta ay tahay hadda ku socoto iska daa kuwa kale ee sheeganaya badaha sheeganaya la qaadanaya waxaan iminka arkayay hadda markaan baariyo research aan ku sameynayay aan eegayay macnaha waxaan loo yaqaano mashaariicda ay wadaan xataa madaxweynahan Ethiopia iminka prime ministerkani wuxuu la kulmay uu duulay weliba waxaan ka hadlayay markaasi inay Lamu oo Kismaayo dusha saaran dhulkii NFT ahayd tareenka laga sameeyo xagga la geeyo waxaad arkaysaa dadkii nool in dushoodii lagu shaqaysanayo marka waxaa loo adeegsan karaa haddaan su-aasha kusoo noqdo oo arrimaha loo hortegi karaa in Soomaalidu ay iyagu istaageerto oo isku kalsoonaato waxaa loo sameynaya waxa weeyaan marka dowladda Soomaalida culuseeda xoogga badneed ay burburtay ayay nimankii markaa soo wadaan marka waxa weeye in dowladda dowlad midnimada dad Soomaaliyeed oo midnimada la abuuro oo dadkii iskaashada meelkasta ay joogaan dadkan ku doodaya walaalnahay cadow baanu Ethiopian walaalnayna waxaa kan looga dhigayaa aan tusaale uga dhigaynaa in dadka ay leeyihiin walaalnahay ay yihiin dadka noocaas ah ee dhulkii Soomaalida maalmo ba qaadanaya waa aanay walaalku ahayn dee cadow ku yihiin ay fahmaan marka waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan dadka Soomaalidu waa inay waxay uga hortagi karaan midnimo iyo iskaashi iyo walaaltinimo inay arrimaha noocaas ku wajahaan iyo aan lagu daynin qola gaara waa sax inkastoona soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena dadweynaha waxaan dib u xasuusinaynaa arrimaha aynu ka hadlayna caawan dhabka hadal kusoo qaadanay inay tahay qulquladaha ka taagan gobolka city ee ismaamulka dowladda Soomaalida Ethiopia kilibis ku salaysan mudaharaad ballaaran oo ka dhacay Belgium oo ku salaysan in lagaga soo horjeedo nidaamka halka ka taagan ee lagu faquuqayo bulshada Soomaaliyeed halka degan dhulkoogana la doonayo in qoomiyad kale loo hibeeyo ayaad goordhow daawan doontaan haddii Ilaahay yiraahdo anagoo markaa soo gaarnay gabagabadii barnaamijka run ahaantii waxaa jira qurbo joog badan oo Soomaaliyeed oo dunida daafeeda ku nool oo ka soo jeeda deegaanadaasi ama ahba dadka Soomaaliyeed ee dhulkooda waayay oo hore ama qoomiyadda Oromiya dhulkooda yani ay haysato ama qoomiyadda Cafarta qayb kamid ah ama qoomiyado badan oo kale oo laftooda waxa jiro yani sida ku maqan dadkaasi laftooda waxaa looga baahan yahay inta badan in ay muujiyaan dareenkooda ku salaysan dhulka Soomaaliyeed ee sii socdo waatan imika aanu ka hadlayna magaalada Jigjigo Bambaas iyo Xaado dusha saaran baa lagu sii socdaa waxa ay daba taalo taasi siyaasadda ku salaysan badda cas oo kale arrimaha ku soo foolay Djibouti oo dowlad oo madax bannaan iyada lafteeda waxaa mar walba hor taalo inay wax ka qabato carqaladahan iyo dhibaatadan meesha ka taagan gabagabadii barnaamijkeena maxaad fariin ah oo aad u faraysaa ummadda degan deegaanka gobolka city ee degmooyinkiisa Afdab iyo Eeraar iyo Ayshaca iyo Meeyso iyo Dambal ee ku nool dibadana ku nool deegaamada ama degmooyinka aan ka sheekeynayno ku nool kuna nool dhulka Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Djibouti ku nool maxay tahay fariinta ugu dambaysa u dirayso kuna salaysan dhulkaasi iyo shaqaqooyinka ka taagan fariinta u diraya waxa weeyaan sida kaliya ka daawanayba halka ka hadlaysa bal kaliya oo ku ceeb ummadda Soomaalida inay qolo kaliya lagu daayo dhibaatada lagu daawado waa in la taageero beeshaas iyada waliba ay magacaabeen qoladan Canfarta iyo beesha Ciisa ma aha beesha Ciisa waa dad Soomaaliyeed weyn waxaan dadka aan ugu sheegayaa dadka deegaanka degan oo dhan in ay dibadii qurbada ay taageeraan walaalahood oo garab taagan sababtoo ah markii imka Canfartu ay soo saartay shirkan jiraayid waxay tir anaga oo Canfara iyo qol ay saarnaa maaha iyo markay Canfar leeyihiin isma kala saarin marka Soomaalida waa inaan iskala saarin iyagu Canfarta ku wajahan Soomaali ahaan dadka deegaanka degan oo dhan waa inay taageeraan walaalahood oo iyagu magaca Soomaali huwan ay taageeraan qoladan kale deegaanka imka ku doodaysa waa la ansixiyay ku doodaysa ama hor ordaysa waxaan u sheegayaa waxa weeye halkan waxaan ku hayaa fariin ka timid ururka loo yaqaano ARDUF oo ah ururka ay Canfarta ku midaysan tahay ururkaas oo ayaga interestka saddexda qaybood ee Soomaalida iyo Eritrea iyo Ethiopia ururkaas isagu uu ku doodayo leh anagu waxaan doonaynaa xataa saddexan magaalo iyo 12 magaalo imika ay sheegteen oo halka ka magacaabay oo kuwa markii magacaabay adeeto ay ka mid tahay Qulxuyo iyo Aftama iyo Meeyso kuwa noocaas ah inay iyaguna ay doonayaan inay ku socdaan waxaan u sheegay markuu kuwa deegaanka Soomaalida jooga
iyo dhulkan la haysta soomaalida jooga ee madaxda ka ah in nimankani ay usoo jeedaan dhulka soomaalida inay qaataan iyaguna ay danta interestka soomaalida ay u doodaan taariikhduna ay sheegi doonto ninkii soomaalinimada ku dooday kii kaleba intaasaan kulli baan waan kusoo gabagabeynaya waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena dhabka hadal oo aan maanta kusoo qaadanayna arrimaha ka taagan gobolka city oo ka tirsan ismaamulka soomaalida Ethiopia daawadayaal barnaamijkeenii oo gabagaba ah waxa aad nagala socon doontaan qaybaha xiga haddii Ilaahay yiraahdo waxaanu doonaynaa in aynu halkan keeno bulsho badan oo yani doonaysa inay ka qayb qaadato ama ay ka hadasho taariikhda iyo milgaha iyo sharafta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka city ama guud ahaan dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia dhulka maanta loo yaqaan ama dhulka Soomaali galbeed waxaanu mar walba doonaynaa markaa in aynu u sheegno bulshada wax walba oo maartay talayo tusaalaana inaad nagala soo xiriir doontaan haddii Ilaahay yiraahdo barnaamijkuna wuxuu noqon doonaa mid sii socdo maalmaha soo socdana foodinu soo insha Allah ayaad ka bogan doontaan qaybo kale oo ku saleysan shaqooyinka ka taagan gobolka city ee ismaamulka dawladda Ethiopia. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.